qaranka Soomaaliya ayaa muddo dheer la dhibaatoonaya dib u soo kabashada ku habsatay tan iyo burburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya horjoogayaashii fikradaha hababsanaa ee dhulka ku masaxay dawladii kacaanka ayaa dalka ku reebay soo kicitimi la'aan gaartay in ka badan 25 sano fikradii ugu weyneed ee lagu la dagaalamay Maxamed Siyaad Barre madaxweynihii dawladii dhexe ayay ku sheegeen horjoogo xumayaashii jabhadaha musiibada dhaxalka uga dhigay awlaadooda in xukuumaddu ay ku socoto mid ku koobnaato hal beel oo qura dagaal ay ku baaqeen iyagoo qaarkood saraakiil ay ahaayeen waxay dhaxal u reebeen qabyaalad dal burburay sadka bursi fikrado la isku laayo culimo kala qaybsan nidaam lagu magacaabo 4.5 oo lagu saleeyo ayaha Soomaaliya iyo dhibaatooyin kale miyaysan la socon dunida horumartay ee qoys kaliya maamulo tusaale Sacuudi Arabiya Imaaraadka Carabta iyo dalal kale oo fara badan dawlad la'aan dawlad xun oo laga baqa dhaanta hal ma ahayn burburuntii dawladii dhexe Siyaad Barre nidaamka hadda noo dhisan ee dunida looga yaqaan ka ganacsiga siyaasadda ayaa hadda ku socda in gabi ahaanba la baabi'iyo haddii cagaha aysan dhulka la haleelin dawladda Soomaaliya oo ay wili horjoogayaal ka yihiin xubno lacag ka sameeya siyaasadda dalalka China India USA xitaa dalal Afrika ah sida Ethiopia ayaa leh hal madaxweyne balse Soomaaliya ayaa leh 5 madaxweyne oo hoostaga madaxweynaha Soomaaliya iyo Somaliland oo i'tiraaf dal ku jango'an iyana madaxweyne ayaa horjoogo ah dhammaan dalalka kor aan ku soo xusnay ayaa waxa ay yihiin dalal bad ahaan aad nooga weyn sidoo kalena naga tiro badan dad ahaan adduunka ayaa Soomaaliya ku micneeyay dal u burburay sidii miyaarad dhulka ku habsatay dawladihii u dambeeyay hadii aanu dib u jaleecno Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynihii dawladii gumeelgaarka waxa uu dalka ka saaray gumeelgaar balse kuma uusan guuleysan dalka inuu ka saaro al-shabaab oo dawladda ka soo horjeedo marka laga reebo Muqdisho iyo deegaano kale oo qura xilligii madaxweyne Shariif waa ay jireen weeraro gaadma ah iyo qaraxyo la soo qorsheeyay oo ka dhacay caasimadda dalka mana jirin dhagax ku go'naa wadooyinka laga soo galo magaalada hoose oo inta badan mas'uuliyiinta dawladda adeegsadaan Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku xogay hogaaminta qaranka Soomaaliya dalka ma uusan nabadeyn balse Mareykanka ayaa ogolaaday inuu aqoonsado Soomaaliya waxaa jirtay xilligii Xasan Sheekh Maxamuud xubno golaha sharci dejinta ah oo la dilay sidoo kale qaraxyo qorsheysan ayaa la bartilmaameedsaday hoteelo iyo goobo dawladda degan tahay iyana ma jirin dhagax ku xirnaa afaafka hore ee magaalada madaxweynaha hadda talada haya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo dalka ma uusan nabadeyn oo xaalad degdeg ah ayuu galiyay balse diiwaanka ciidanka ayuu ku guuleystay weeraro qaraxyo ismiidaamin ah ayaa tiro dhowr jeer ah dhacday iyadoo dhagax ay ku xiran yihiin wadooyinka gudaha magaalada laga soo galo isu socodka gaadiidka iyo ganacsigana uu hakad ku jiro markan dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe ee Soomaaliya markan u eegno Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynihii dawladii kumeelgaarka ahayd ma jirto wax uu ka dhax sameeyay maamulada dalka walow kulamo uu la qaatay maamulka Somaliland mana jirto maamul xilliga jiray oo cabasho ay u dhaxeysay dawladda dhexe Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku guuleystay inuu dhiso dhammaan maamulada waqtigiisii ayaa ku dhacay mana jirin maamul si gooniya shaqaaqa ay kala dhaxeysay maamulka Somaliland iyana wada hadallo ayuu la galay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa ay iska hor imaadeen Galmudug haddana Puntland Koonfur Galbeed Jubbaland maamulka Curdunka ee Hirshabelle ayaa dirqi lagu aamusiyay madaxweyne Farmaajo waxa uu madaxweyne uga dhigay Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftigreen iyadoo waqtiga doorashada shaqaaqa shacab uu ku dhintay lagu soo qabtay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo murashax ahaa horena uga tirsanaa al-shabaab balse dawladda kala hore isu soo dhiibay Galmudug ayay dhaxmartay iyana khilaaf baasan dawladdan ahlu sunna ayaa cod sare ku sheegtay in dawladda Farmaajo ballamo uga baxday ballamadaas oo ahlu sunna lagula galay in ay ka qayb noqdaan xilka qaadista madaxweyne Xaaf oo Galmudug markaa maamulayay dhowr jeer shir ay u dhan yihiin maamulada dalka marka laga reebo Hirshabelle oo la maquunshay maamulada kale waxa ay xiriirka u jareen dawladda dhexe ee Soomaaliya
ugu dambeyn doorashada Jubbaland ayay shaacisay dowladdan in aysan ahayn mid sax ah kadib markuu ku soo baxay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo khilaaf siyaasadeed kala dhaxeeyay madaxweynaha talada hadda haya taasoo laga diiwaan geliyay go'aanka farmaajo ee xanibaadda hawada Jubbaland madax iyo majo intaba dhanka amniga caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho labadii xilli ee Shariif iyo Xasan ma aysan diiwaan gashan xaaladda degdega ah ee farmaajo caasimadda uga dhawaaqay Marshal Law qaraxii Afrika ugu weynaa ayuu sidoo kale diiwaansaday madaxweyne farmaajo duqii Muqdisho ayaa xilli galab ah lagu dhex qarxiyay xarunta gobolka Banaadir mas'uuliyiin fara badan uu ka mid ahaa duqa caasimadda ayaa ku geeriyooday kiiskaas oo si cad looga wada qancin baaristiisa dhacdadan ayaa ugu weyn diiwaanka qalad ee farmaajo uu ka hoyan doono iyadoo wadooyinka caasimadda dhagax ay ku jaran yihiin axsaabta siyaasadda dalka ayay isla galeen madaxweyne farmaajo xaalad cabsi ku beertay muwaadin walba oo Soomaaliyeed kadib xayiraado isdaba xigay uu ku sameeyay madaxweyne Shariif oo laba mar ahayd iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo marka labaad Shariif kula mataana gargaarkii beledweyne ee axsaabta ugu safrayeen deeq ay gaarsiiyaan reer Hiiraan oo mawjado biyo ah ay ka qarqiyeen xoolihii tacabkii iyo guryihiiba ballanqaadyo cadcad ayuu ka baxay madaxweyne farmaajo markii uu hantay kursiga madaxtinimo kuwaas oo ka mid ahaa ololihiisii doorashada taasoo keentay shacabka qaar oo laba aragti ka kala qaatay madaxweynaha dowladda Soomaaliya sida adduunka hadda caawiya Soomaaliya uga sii libdhacayso rajada dib u soo noqosho ee Soomaali weyn ayaa dhalin karta in Soomaaliya laga dhigo dowlad goboleedyo dhammaantood la hoosgeeyo dowladda kale iyadoo aysan jirin wax calan midaysan ah oo Soomaali ay lahaan doonto Soomaali baa leh dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxa mas'uuliyad ay ka saaran tahay difaacashada qarannimo iyadoo aan loo egeyn cid gooniya looguna aaba yeelin siyaasi hanti ka sameynaya siyaasadda dalka lagu maamulayo sanad kadib waxaa lagu madalsan yahay doorasho qof iyo cod ah in ay ka qabsoonto Soomaaliya sida lagu qanciyay axsaabta siyaasadda Soomaaliya dowladda federaalka Soomaaliyana ay ku dhawaaqday suurtagal ma tahay in ay doorasho qof iyo cod ah qabsoonto